cid jasmin karta addoon dhintay xataa saalax kastaba ha ahaadee janno ku jasmin kartaa ma jirto. sheekheenna jannaatulfirdowsatul aclaa ayaan shaki nooga jirin in saacaddaanba ruuxdiisa la geeyey wixii laga sheegana waa waxaan markaasi waxba weyn aanan taraynin. alxamdu lilaahi sharaf bani aadan iyo karaamo hadduu leeyahay tii ilaahay uu siiyey ayaa maaragtayaa midda ugu weyn ah zaminka maanta la joogo. kelimadaas uu sheekha yidhi haddii miisaanka la saaro shareecada inay haddee qofka uu niyadiisa ay xun tahay mooye maxmal wanaagsan ayay yeelan kartaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixulbukhaari janaase intii lasoo marsiiyey inuu yidhi nabigu wajabad, saxaabadii baa ammaaneen. markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wajabad. mid kalea lasoo marsiiyey wuxuu yidhi wajabad. sayid cumar baa meesha fadhiyey markaasaa ku yidhi maa wajabad, oo marka ay leeyihiin macnaha culimmadana waxay leeyihiin yani maa macnaa wajabad, wajabad macnaheeda maxay tahay rasuulka ilaahayow. markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayr baad ku ammaanteen, janna u waajibtay. tan kalena waxaad ku ammaanteen shar, waxaa u waajibtay naar baa u waajibtay. xadiiskaas marka nabiga wuxuu suga calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniinta ah haddii ay qofka khayr ku ammaanaan inay janna u sugnaanayso. hadalka sheekha marka si guud markii loo khulaaseeyo intaas ayuu xambaarsanaa oo ammaanta iyo wixii macnaha baraha ka daahiraya meeshii sheekha markaas lagu xabaalayey calaamadii muuqatay ayuu sheekha hadalkiisa mudaabaqaynayey, dhinacaasu u wajahnaa. nabiga marka wuxuu ku sii dara calayhi salaatu wasalaam hadalkaas antum shuhadaau llahi fii ardihi ama fil ardi, waxaad tihiin idinka haddaad mu'miniinta tihiin shuhadadii ilaahay oo arladan uu keenay. waxaa kaloo dhacday xilligan nabiga kumaysan koobnayna calayhi salaatu wasalaam sayidina cumar markii uu madiino tagay abilaswad addu'aliya wuxuu leeyahay waxaa la soo mariyey sayidka sayid cumar janaase ayaa la soo mariyey. markaasaa wuxuu yidhi wajabat. mid kalea la soo mariyo wajabat, mid kalea la soo mariyo wajabat. markaasaa wuxuu yidhi labadii hore waxaa u waajibtay khayr baad ku ammaanteen, janna u waajibtay, midii kalena waxaa u waajibtay janna. weliba way weydiiyeen oo dadkii meesha joogay sayid cumar way weydiiyeen maxaad ka wadaa bay yidhaahdeen. markaasaa wuxuu yidhi wuxuu nabiga yidhi un baan idhi calayhi salaatu wasalaam. marka halkaas waxaa nooga muuqataa sayidina cumar bacda mowti nebiyi inuu macnaha axad muslimiinta ka mid ah uu ku leeyahay wajabat. waxa marka wajabatna yani habatat waay macnaheeda way sugnaatay waa. marka haddii ay sugnaatay macnaha waxaa weeye qofka way u sugnaatay janna haddii la yidhahdo dee jannu gala un waay macnaheeda. marka ciddii haddee wajabat macnaheeda janno ma gelin u fasiraysa kolley ayadaan ka sugaynaa fasirkaas. hadalkii sheekha marka intaas ayuu khulaaso ahaan ayuu xambaarsanaa, meeshaas ayuunu ku fadhiyaa. weliba sayidina cumar wuxuu meesha xadiiskaa kusii daray qof ma jiro 4 muslim ay u markhaati kacayiin ilaa waa ahlu janna. qof ay markaasaa wuxuu leeyahay waxaan weydinay abilaswad wuxuu leeyahay waxaan nidhi bal 3 ka waran, sidoo kale wuu yidhi 2 ka waran, sidoo kale wey. laakiin ma aanan weydinin buu yidhi hal qof ma aanan weydinin buu yidhi. marka hadalka sheekha si guud sheekh maxamuud wuxuu xambaarsanaa inta xadiiskaas uu ka hadlayo oo inay qofka macnaha janno loo suga ah. taa markaan ka soo gudbo waxaa kale oo ku jirtay sheekha hadalkiisa inuu macnaha janno mucayana inuu sheegay. hadalka sheekha waxaa ka mid ahaa ruuxdiisa sheekha ruuxdiisa inay fardows alaclaa inay ilaahay geeyey shaki noogama jiro yidhi sheekhu. hadalkaas marka uu sheekha isticmaalo oo tacyiinka makaan gooni oo jannada ka mid uu cayimay, haddii macnaha sheykha loogu baadilnimo xugminayo oo loogu gaf xugminayo waxaa fiicnayd macnaha ayaga culummadooda kelimadaas oo kale waa lagu dhahee inay macnaha waxoo dhan ba ay wada radiyaan. laakiin in sheekha keligiis la qabsado ma ahayn cadaaladda iyo waxa la yidhaahdo macnaha sida lagu yaqaano insaafka ma ahayn. marka waxaan rabaa bal culummadoodii qaar ka mid ah sheekhaba ayaga ugu weyn walaalada inta badan ay ictimaadaan ibnu taymiya asagoo kelimaad noocaas oo kale lagu yidhi bal inaan insha allahu tacaala aan isla fiirino. ninka la yidhaahdo ibni cabdilhaadi maxamed ibni cabdilhaadi la yidhaahdo
wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo alcuquud duriya wuxuu soo guurinaa markaa dadkii ammaanay ninka la yidhaahdo ibnu taymiya oo abyaad ku ammaanay abyaaddaas waxaa ka mid ah markaa lagu ammaanay waxyaalihii hadda sheekh maxamuud lagu haystay nafteeda marka abyaaddan hadda aan akhrin doono waxaan rabnaa marka inay walaalada xugun saaraan oo ibnu cabdilhaadi uu soo guurinayo iyo tii sheekh maxamuud uu sheegay wax farqi ugu dhexeeyana inay dadka u sheegaan inay dadka ka qariyaan wixii kutubtooda ku qoran ma aha cuquudu duriyaha wuxuu leeyahay markuu soo guurinayo ninka la yihahdo ibnu cabdilhaadi asagoo naaqil ahoo soo guurinaya culummadii sheekha ammaantay oo abyaadda ku ammaantay qaar ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay sacidat bihi ardun aqaama biramsiha mayitan wa hada almayitu xayun mukramu oo macnaheeda maxay tahay sacidat waxaa liibaantay ardun arlo ayaa liibaantay arladaasoo aqaama ibnu taymiye uu ku nagaada biramsihaa qabrigeeda meytan xaaluu yahay arladii baa waxaa laleeyahay ibnu taymiyey sababkiisa ku liibaantay intaas oga muuse harina wuxuu yihi meytan xaaluu yahay wuxuu daba dhiga marka wa hada almeytu xayun mukramun meydkan oo ibnu taymiye ah xayun waa mid nool mukramun oo la karaamayna karaamaynta waxaa ka mid ah qofka in la janneeyo jannayntu min alkaraamati kama baxsano karaamaynta waa jannaynta qayb ka mid ah weye intaa oga muusan harin wuxuu yidhi nuqilat ilaa jannaati cadnin ruuxuhu nuqilat waxaa la guuriyey ilaa jannaati cadnin waxaa loo guuriyey ruuxuhu ruuxdiisi baa jannaatu cadnin loo guuriyey yaa oga soo waramay isagu ibnu taymiye ruuxdiisa inay jannaati cadnin loo guuriyey waa hadalkii nafsuhu waaye kii sheekh maxamuud lagu haysta naftiisa sheekh maxamuud wuxuu yihi ruuxdiisa jannatulfirdows alacla loo guuriyey halkana maxaa ku taala nuqilat ilaa jannaati cadnin waa tacyiin makaan jannada amkinadeeda kamid la cayimay qaar ka mid a la cayimay taas waa taas markuu sii wada wuxuu leeyahay huwa fii jiwaari illaahi ashrafi manzilin ilaahi dariskiisa ayuu ku sugan yahay manzil kan ugu sarreeyana ku sugan yahay manzil kan ugu sarreeyana waxaa weeye jannada jannat alfirdows weye wuxuu kaloo halkaa ku sii dari meeshaas mar kale wuxuu leeyahay ibnu cabdilhaadi asagoo soo guurinayo ibnu taymiya arrinta ku tacalluqdo in yakun shaksuhu gaaba wartawaa in yakun gaaba shaksuhu wartawaa wamadat ruuxuhu lidaari salaami haddii wuxuu leeyahay ibnu taymiya muuqaalkiisa uu qarsoomay oo uu asturmay wamadat ruuxuhu lidaari salaami oo wamadat ay u tagtay ruuxuhu ruuxdiisa lidaari salaami jannada daarusalaam ay ruuxdiisa u tagtay soo iyadoo haddana makaan la tacyiininayo oo la cayimayo laleeyahay makaan ayaa ruuxdiisi loo qaaday nafsu haawey markaasaa wuxuu leeyahay hadday saas noqotay famanaaqibuhu waalfadaa'ilu tabqaa fii mamari duhuuri fadaa'ishiisa iyo waxyaalaha ku tacalluqo oo fadliga ah weligooda way baaqi ahanayan laakiin ruuxdiisa waxaa loo guuriyey daaru salaam buu leeyahay halkaasuu kasii wadaa sayidun weeye qad calaa fii xilmin wa cilmin ayuu halkaa kasii daldalaa marka taas waxaa weeye ayadoo jannadii